warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar waaberigii hore ee saaka ee al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin duleedka deegaanka ceeldheer ee gobolka galgaduud. al-shabaab ayaa saaka salaadii subax kadib waxay weerar qaraxyo ku bilowday iyo dagaal toos ah ku qaadeen fariisin ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud. wararka ayaa waxay intaasi sheegayaan in al-shabaab ay sidoo kale dagaal toos ah ku qaadeen fariisimada ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka. al-shabaab ayaa sidii caadada ahayd waxay saaka mar kale weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen fariisimo ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud. saraakiil ka tirsan xoogga dalka oo aan la xiriirnay ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay iska caabiyeen kooxda weerarka ku soo qaaday fariisimada ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka. waxayna sidoo kale wararka aan helayno ay sheegayaan in kooxdii weerarka soo qaaday saakay lagu laayay halkaasi isla markaana ay jab xooggan kala kulmeen ciidamada xoogga dalka ay ku sugnaayeen saldhigga saaka ee al-shabaab weerarka kula soo dheelmadeen ee ku yaala duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud. ciidamada xoogga dalka ayaana iska caabin xoog leh kala hortegay kooxdii weerarka ku soo qaaday, taasoo keentay in al-shabaabkii weerarka soo qaaday qaarna la dilay qaarna ay ka baxsadeen halka ay weerarka ka soo qaadeen. sidoo kale sargaalka aan la xiriirna ayaa wuxuu inoo sheegay in ilaa haatan ay sii baacsanayaan kooxdii saaka weerarka soo qaaday, isla markaana dhawaq rasaasa laga maqlayo qaybo ka mid ah duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud. al-shabaab ayaa sidaan oo kale waxay weeraro gaadmaha subaxdii waaberiga ay ku qaadaan fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka qaybo ka mid ah gobollada dalka. waxaana xusid mudan in kooxda al-shabaab ay ku soo aruurtay qaraxyo ay sidoo kale weeraro gaadmaha ay ku qaadaan fariisimada ciidamada dadka deegaanka ay sidoo kale xoogga dalka ay ku leeyihiin gobollada dalka. al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa laga saaray qaybo ka mid ah gobollada shabeellaha dhexe iyo sidoo kale galgaduud. waxayna saakay weerar waaberigii hore ee salaada subax kadib ay ku soo qaadeen fariisimo ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud.